heshiiskan oo ahaa mid lagu ballaarinayo Freeson casri oo ay yeelan doonto magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil ayaa ka qabsoomay magaalada Dubai ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta waxaana heshiiskan kala saxeexday dawladaha Somaliland, Ethiopia iyo dalka Sultanka Imaaraadka Carabta waxaana goobjoog ka ah wafdi wasiirra oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland iyo safiirka Somaliland u fadhiya dalka Sultanka Imaaraadka Carabta dhinaca shirkadda DB World ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabtana waxa goobjoog Sheikh Sultan sidoo kalena waxa joogay wafdi ka socday dawladda Ethiopia waxaana markii uu heshiiskan soo gabagaboobay warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire iyo safiirka Somaliland u fadhiya dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. The fact that Ethiopia is part of it really gives us a lot of credibility and strength. xaqiiqada ah in Ethiopia ay heshay boqolkiiba 19 saamiga maalgashiga dekada Berbera waxa ay tahay sharaf weyn oo awood u yeelaysa mashruuca sababtoo ah Ethiopia waa dal weyn oo ay ku nool yihiin 110 milyan oo ruux sidoo kalena kamid ah dalalka adduunka ugu horeeya ee kobaca dhaqaalahoodu xawliga ku socdo kobacaasina waxa horseeday maalgelinta dekadaha gaar ahaan ta ku taala Djibouti iyo ta Berbera oo hadda aanu diyaarinay naqshadeedii ay ku noqon lahayd dekad weyn. Ethiopia is a big country with 110 million people. Ethiopia's growth is one of the highest in the world. The biggest issue that really affect the growth of Ethiopia is the unavailability of ports. And today we're adding, in addition to Djibouti, we're adding Barbara, which we planned and designed to be a major port. FZE, that will give the government of Ethiopia 19% stake in the joint venture. boqolkiiba 19 ayaa Ethiopia ay ka heshay maalgelinta dekada Berbera lagu sameeyo mashruucan dekada iyo ka Berbera corridor ayaa Ethiopia oo dhaqaalaheedu kobcayo waxa uu horseedi doonaa inay hesho marin kale oo dunida ay kaga xirmi karto si ay wax uga dhoofiso waxna uga soo dajiso ayaa uu yiri wasiirka gaadiidka ee wadanka Ethiopia Ahmed Shide. Developing the port of Berbera. The agreement will help Ethiopia secure an additional logistical gateway for its ever-increasing import and export trade driven by its growing population and economy. In addition, Ethiopian participation in the development of Port of Berbera and the Berbera corridor will help bring increased economic development. وخميسة وبش مارش أي كوتهاي سنة 2018 مقالة دبي وحنكوك الاستحاح أن Somaliland iyo Ethiopia iyo shirkadda DB World ee Imaaraadku heshiis ku saabsan sidii loo wada yeelan lahaa la isna kaashan lahaa shirkadda maamulaysa ballaarinaysa dekada Berbera waa heshiis aad iyo aad u muhiim ah waayo ballaarinta dekadu waxay noo suurtagelinaysaa sidii dhaqaalaha xooga ku kobcaya ee gobolka dekadaha uu u baahan yahay mataqaana looga heli lahaa dekadaha iminka jirana uu kaabi lahaa Somaliland gaar ahaan waxaan rajaynayaa heshiiskaasi inuu noqdo mid midho dhalah oo ay ka dhashaan oo ka dhasho shaqo abuur sidii dhalinyaradeena aynu shaqo ugu sameyn lahayn oo arrinka shaqo la'aanta aynu maxaan idhaahdaa u xalili lahayn wuxuu kaloo inuu xirayaa heshiiskan ka dekada la ballaariyo gobolka wadamada kale ee ku yaala khaasatan wadamada aan lahayn xeebta sida wadanka Ethiopia wadanka Uganda wadanka South Sudan iyo kuwa kale geeska ku yaala DB World heshiiskii hore aanu la galay wuxuu ahaa iskaashi laba geesooda ayuu ahaa oo ku saabsan dekada maamulkeeda iyo ballaarinteeda kan waa heshiis saddex geesooda imika heshiiskan dambe waxaynu ugu soo diray wadanka Ethiopia waana runtii arrin aad iyo aad u muhiim ah waayo marka la ballaariyo dekada cidda ugu horeysa amba ugu mudan ee u adeeg doonta dekadu Somaliland ka sugay waxa waa dalka Ethiopia marka wuxuu siinayaa runtii miisaan iyo qiimo ayuu siinayaa saamiga sa loo kala qaybsanayaa waxa weeye Somaliland waxa leedahay boqolkiiba 30 Ethiopia waxa leedahay boqolkiiba 19 DB World waxa leedahay boqolkiiba 50 in dalkan Imaaraadka uu ka dhacay heshiis saddex geesooda heshiiskaas oo kala saxeexdeen shirkadda DB World Jamhuuriyadda Somaliland iyo dawladda federaalka Ethiopia heshiiska ayaa wuxuu daba socday heshiis hore xukuumadda Somaliland iyo shirkadda DB World kala saxeexdeen oo ahaa maamulka dekada Abdi Nasir Khalid Saciid wararka Cable TV magaalada Dubai.